السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن ونكسن داوديال شقيمها يقدر أنت مدن أنك داونيا يوتيوب كنا يوليبا برتنا فيسبوك قلك ميديا waxaan galka media aan halkan si toos ah idinku soo gudbin doonaa war degdeg ah oo iminka naga soo gaarayo dhinaca Guracayl xaaladda magaalada Guracayl oo allow sahal ah ku jirto maanta ciidamadii ugu badnaa oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka socda magaalada saddex jiha ayay ka hareerayeen ahlu sunna wal jamaacana waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu weynaa ee ku aadan qaabka marka magaaladaasi iyagu ay xilligan u sii haysan lahaayeen كودي أكتوبر أيي أهل السنة والجماعة سر رسمي أهي ولو وريتي مجالة جرعيل أو مركا حرم مهم وهي معمول كجلمدوك سيدو كله جرعيل وح أي مركا هاي حرم تجنعسجة أنت بدل مركا نقاله إكيه الجيران معمول كجلمدوك عيد مدى الدولة أي الله شيء إن سدح جهة حل جن مركا إكاه رجال مجالة سي جؤذو من أي كوسا مجان أهل السنة والجماعة هوكي وقصلا أيي أهل السنة يدون مركا من كذا أي صوب war goordhow naga soo gaaray dhinaca madaxtooyada Dhuusamareeb ee Galmudugna waxa ay markaa tilmaamayaan in guud ahaanba madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu qaatay go'aankii ugu adkaa oo magaaladaas inta badan xilligan looga saarayo ahlu sunna dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan xitaa wararka aynu helino waxa qayb ka ah ahlu sunna inay deegaanka huurshe oo markaa xuska nabiga ay ku qaban rabtay xitaa ay sababo jira awgeed u baaqdeen maadaama xilligan dagaalkii ugu badnaa iyagu marka dhankooda uu ku furan yahay aynu dul istaagno marka maxaa xaaladan ka soo cusboonaatay dhinaca iyo waliba Guracayl maxaa sabab u ahi sida inta badan xilligan la xaqiijinayo waxa sabab u ahi arrimo badan oo ay istuseen wadaadada ahlu sunna wal jamaa oo 2 sano ka hor iyagu deegaanadaasi Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu dagaal kaga saaray xilligaas oo ciidanka dawladda haram cad iyo waliba gorgor iyo waliba danab iyagu marka loo adeegsaday taa oo ugu dambeyntii ahlu sunna ciidanka dawladda ay marka ku biireen xubnihii iyagu marka la socday aynu dul istaagno halkee ay dhaqaaluhu ka heleen ahlu sunna sidee ay xilligan xaaladda iminka magaaladaasi ay ugu suura gashay inay gacanta ku dhigaan wararka isa soo taraya ayaa waxa qayb ka ahi in guud ahaanba marka ay noqotay ahlu sunna wal jamaa kuwa xaaladooda iyo waliba xiisadooda dagaal ku soo aadiyay xilli doorasho sidaan la wada socodno Galmudug 2 kursi ayaa marka ku harsanayd oo xaaladda marka jirta awgeed ilaa iyo haatan loo dooran waayo oo dhinaca aqalka sare ahi xubnihii golaha shacabka ee la rabay gaalkacyo iyo Dhuusamareeb inay doorashooyinkooda ka dhacaan ayaa ilaa iyo haatan marka ku jira bakin ama wax markaas la yiraahdo xayiraad ay dul saaran tahay xubnaha wakiilada beesha caalamka oo shalay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor la shiray waxa ay marka dul dhigeen amar ahi in xiisada ahlu sunna wal jamaa loo maro dhinaca wada hadalka iyadoo ay marka looga digay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inuu talaabo dagaal uu qaado taas oo marka ay yiraahdeen wakiilada beesha caalamka sida aan war iyagu ay ku shaaciyeen bagogooda ay marka ay sheegeen in carqalad ku noqon karto hadii xiisada ahlu sunna loo wajaho qaab dagaal dhinaca iyo waliba marka doorashooyinka ay caqabad hor leh ay ku noqon karto guud ahaan marka dhaqaalaha xagee ka heleen markaynu dul istaagno sidaan la wada soconno ahlu sunna wal jamaa dhaqaalaha ugu badan xilligan waxa ku bixinaya in deegaanadaasi iyagu marka dib ula wareegaan dawladda Imaaraadka Carabta oo la aaminsan yahay in villa Soomaaliya ay si weyn isu hayaan sidoo kale warar goordhow marka warqabadkeena soo gaaray iyaguna waxa ay tilmaamayaan in ciidamadu ilaa iyo waliba gelinka dambe ilaa iyo caawa ay suuragal tahay inay magaaladaasi Guracayl ay la wareegaan balse maxaa kaga horeeya halkaas sida la wada socono ahlu sunna waxa ay soo bixisay hubkii ugu cuslaa oo ay doonayso inay marka Guracayl ay marka kaga difaacato ciidamada huwanta ahi ee Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya odawa ayaa la aaminsan yahay in maalmihii dambe uu ku sugnaa Dhuusamareeb inta badan wada hadallo uu marka la sameeyay ahlu sunna laakiin dalabkaasi waa ay ka biyadiideen haddaba xaaladan dhinaca iyo waliba marka ay ku saabsan Galmudug waxay u dambeyn doontaa ayaa la leeyahay in ay isfara saaraan dhinacyada sida xoguhu ay marka tilmaamayaan barakici ugu weynaana waa uu ka socdaa Guracayl inta badan shacabkii ku sugnaa magaaladaasi waa ay ka barakaceen ganacsatadii ugu tunka weynaa magaaladaasna waa ay ka barakaceen xaalku waa culus yahay
xaalku mar walba markaa waxaa la filan karaa in dagaal uu ka dhaco Guraceel sababtoo ahi ahlu sunna guud ahaanba wada hadallada iyo waanwaantii odayaasha ay wadeen taliyihii ciidanka xoogga dalka oo muddooyinkan dambe ugu baaqayay in gaadiid dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qabsadaan inay dib u soo celiyaan guud ahaanba waa ay ka diideen marka qorshayaashaasi in ay marka iyagu wada hadalka iyo waanwaanta ay qaataan kaariye oo iyo waliba qoorqoor oo markaa ah madaxweynaha galmudug waxaa laga soo xigtay in uu markaa xaaladan u wajahi doono tii 2 sano ka hor oo kale ka dhacday xerada inji ee magaalada Dhuusamareeb oo ahlu sunna markaa iyagu lagu go'doomiyay halkaasi wadaadadii ahlu sunna ee hogaaminaya macallin maxamuud iyo sidoo kale sheekh maxamed shaakir cali xasan iyagu markaa ay isaga baxeen deegaanada galmudug xaaladu way adag tahay inta badan ahlu sunna waxa la leeyahay xaalkoodu waxa uu noqon doonaa mid markaasi tii 2 sano ka hor ka dhacday deegaanadaasi uu qoorqoor markaa qorsheynaya tallaabooyinkaasi inuu qaado balse la taliyaashiisa ayaa ku dhagan dib aynu usoo noqono aan dib idin update garayna daawadayaal xaaladda uu isku casilay wasiirka amniga ee galmudug maxaad kala socotaan wasiirka amniga ee galmudug 3 arrin oo qodob oo waaweyn ayuu isku casilay kow waxa uu sheegay in lagala tashanin ciidanka dowladda ay halkaasi geysay federaalka labo hakadka ku yimid dagaalkii lagula jira al-shabaab 3 arrinta ahlu sunna sida loo wajahayo aan kala qaadno marka ahlu sunna iyo waliba xiisadan uu isku casilay wasiirka galmudug amniga dhinaca amniga hore Axmed Macallin Fiqi waxa ka dhaxeeya 2 arrin ayaa la leeyahay inta badan xubnaha hogaamiyaasha ahlu sunna iyo waliba Fiqi waxa ka dhaxeeyay 2 sano aynu ka soo gudubnay wasiirka amniga uu ahaa ee galmudug xiriir qoto dheer oo ku salaysan in xaaladan ay deegaanada ay dib ugu soo noqdeen uu isagu markaa ku lug lahaa sida xogta ugu dambeysay ee galka ay soo gaarayso qodobka kale waxa inta badan markaa iyadoo la soo warinayaa in guud ahaanba xaaladaha markaa ku salaysan arrinta ahlu sunna uu waxyaabo badan ka og yahay sir badanna uu ka hayo qoorqoor inta badan waxay isku qabteen arrintaasi waxa loo wajahayaa dagaal iyo looma wajahayo marka guud ahaan xaaladda ugu dambeysa ee iminka markaa dhiiladan colaadeed ee ka taagan deegaanadaasi galmudug waxaa sabab u ahi iscasilaada Fiqi iyo sidoo kale xiriirka hoose ee ka dhaxeeyay Fiqi iyo ahlu sunna iyo sidoo kale guud ahaanba xaaladahan galmudug oo iyagu markaasi noqdeen kuwa inta badan ahlu sunna ay ka dhex kaluumaysato shalay Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo hadlay waxa uu yiri waxa ay la mid yihiin dagaalamayaasha al-shabaab hadalkaasi si weyn ay ugu falceliyeen dhinaca wadaadada ahlu sunna wal jamaa guud ahaan xaaladda ahlu sunna iyo waliba midda hadda ku saabsan dhiladan colaadeed mar walba sida ay xubno halkaas ku sugan iyo waliba hogaamiyaasha ahlu sunna oo la xiriirnay waxa ay xaqiijiyeen in mar walba dagaal la filan karo xaaladdu way adag tahay dadkii barakacay halkee ay ku sugan yihiin maxaa kala socota dadka barakacay waxa ay ku sugan yihiin deegaano duleedka ka ah magaalada Guraceel ilaa 40 kilomitir ilaa iyo 30 kilomitir meel u jirta ayay markaa guud ahaanba ku sugan yihiin xaalad adag oo dhinaca caafimaadkana halkaas ay ku haysataa sida ay xoguhu tilmaamayaan wararkan iyo waxyaabaha kale ee nagu soo kordha halkan ayaa toos kala socon doontaan mar walba annaga oo si toos ah kaamirada u hor imaan doono xogaha degdegana nagu soo kordho aan idinla wadaagi doono haddii aad tahay markii kugu horeysay ee aad barteena YouTube soo booqato galka media hanaga ilaawin inaad rukumatid sidoo kale baraheena Facebook markaa galka media iyaguna waad rukuman kartaa oo like iyo follow warbixintan iyo waliba xogaha degdegana ah si share garay wixii ku soo kordha xaaladda galmudug halkan isha ku hay